kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos idin ka soo gudbinayno studio-deena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. daawadayaal sida wararka aad kula socotaan waxa haatan guud ahaan dalka Soomaaliya ka socda doorashooyinkii loogu diyaar garoobayay in ay soo dhamaadaan bishan aynu ku jirno 25-keeda iyadoo dadka qaar ay leeyihiin xilligaasi wali way ku yar tahay oo muddadaasi lagu ma dhameyn karo haddana waxa socda dadaal xoog leh oo la doonayo in lagu soo afjaro in xildhibaanadaasi markaasi ay ka soo baxaan dhammaan maamul goboleedyada. haddaba doorashooyinkaasi ayaa maamul goboleedyada qaarkood waxaa lagu eedeynayaa in aanay si cadaalad u dhicin dadkii la doonayay inay soo baxaan ee xaq u lahaana markaasi xaqoodii la duudsiyay oo dad kale la soo geliyay. bal galabta waxaynu eegi doonaa doorashooyinka ka socda koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaana tan lagu qabanayo degmada Braawe. waxa garabkayga bidix fadhiya oo studio lagu soo boqday Maxamuud Obsiye Cilmi oo aan ka wareysan doono sida arrimahaasi ay u socdaan doorashooyinku gaar ahaana degmada Braawe. marka hore Obsiye ku soo dhow studio-heena Somali American TV. waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan daawadayaasha radio Somali American TV. marka inta muuqayga magacayga taqaan iyo intaan aqoonba dhammaantood waa salaamayaa. waayahay salaanka bacdi waxaan ka hadlayaa markaan usoo noqono sida uu wariyuu sheegay deegaan doorashada Braawe ee hortagta koonfur galbeed gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa oo maanta aan isdul taagaynaa kursiga lambarkiisu yahay hoob 045 oo degmada Braawe oo degmada Braawe ah maamul goboleedka koonfur galbeedna waa deegaan doorashada labaad maaragtay koonfur galbeed. okay ku weydiiyay marka kursiga miyaa la isku haystaa sida u jiraan niyo kursigaasi la iskuma haysto laakiin waa loo bareeray baa la oran karaa runtii yani waxa la isku haystaa waa waxa hadda labadeena tusaale ka dhaxeeya ama labada family ka dhaxeeya ama laba ummadood ka dhaxeeya ama laba qof ka dhaxeeya oo marka horeba ka dhaxeeya yaa la isku qabsan karaa si kasta la isku qabsan ama qaab gender oo female maaragtay ama laba iyo dhadig la isku qabsado ama qaab reeru way kala baxaan ummadda Soomaaliyeed waa la yaqaanay ummad wax wada leh laakiin kursigan reerba iska lahaa bal tafaasiil laga sii kursigan no fasil hoob 045 wuxuu yaalaa Braawe wuxuuna ka yimid koonfur galbeed waxaana khaas ahaan u lahaa beelweynta Sheekhaal Gandirshe oo deegaan xeebeedka u dhaxeeya Muqdisho ilaa marka gobolka Shabeellaha Hoose khaasatan degmooyinka Gandirshe Jilimarka maxaan idhaahdaa dhanaane areadaas dega runtii markaan Sheekhaal Gandirshe waa reer weyn taariikh kule Soomaali ilaa halgankii marka hadda laga sheekeynayo halgankii wuxuu ahaa Soomaalida South iyo North inta ugu badan marka NFD iyo Djibouti iyo Soomaali galbeed laga reebo intii Soomaaliya markii dambe la isku oran jiray North iyo South bay Northka waxa ugu macruufsanaa halgankii Daraawiishta Southkana waxa ugu macruufsanaa ama koonfurta halgankii Gandirshe iyo Biyamaan labada reer ba gaar loo xusaa horta halkaas taagan way marka koowaad talabaad markii calankii la qaatay COVID-19 maayarkii isbedelkii koowaad maayarkii koowaad labaad ee Banaadir iyaga ahaa ama duqi magaalada ee Muqdisho oo Sheekh Jamal Jabiye ayuu ahaa waa reer taariikh weyn kula deegaankaas ilaa maalintii calanka la qaatay ilaa maantana siyaasadda kama bixin waa tahay maxaa ku dhacay reerkii hadda intii la bilaabay doorashada gaarkayd iyo tan ku meel gaarka laga baxayba xildhibaanadoodu way u taagnaayeen wax xildhibaankii koowaad haddeer hadal la geliyo ama reerka la diro cidla ee ka soo bixi jiray koonfur galbeed koonfur galbeed ka soo bixi jiray way hoos u dhaca sida u jiraan waxa weeyaan doraad waxaa la fadhiistay halka horta kursigan hadal badan baa ka yimi madmadow badan baa lagu arkay waxaa loogu tegay mas-uuliyiin badan oo ilaa heer ah madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Abdullaahi Farmaajo waa loogu tegay Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen waa loogu tegay madaxweynaha koonfur galbeed waa wada og yihiin runtii mas-uuliyiintu xagga ka jiray ama heer dowlad goboleed ha noqoto ama heer federaal ha noqotee waana ballan qaadeen markii hore oo marka maamulka la hor fadhiyo ama mas'uulka la hor fadhiyo
dhibaatada in haysta waxa weeye wuxuu odhanayaa wax khaldamaya ma jiraan iyo ergadii oo ugu mudnaa weliba dee qofkii saxeexaha ee xaqa u lahaa inuu saxeexo ayaa maaragtay wuxuu ballanqaadkaasu kaga yimi marka weliba ballanqaadka loo sameeyey labaad xitaa nin la yidhaha cabdirashiid waxaa jira wasiir ah oo ah wasiir dowladda federaalka maxamed cabdullahi farmaajo haddeera cabdirashiid la yihahdo wasiirka xitaa raggii hor fadhiistay buu ahaay uu yidhi inaad idinku lab iyo dhadig ugu wada hadashaan oo isku qabsataan iyo wax khilaaf noocaasa mooyaane wax reer ahaan kursiga hob 045 ka imaanaya ma jiro daraad markaan kuu sheegay waxaa dhacay in hoolkii ay guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ay soo qoreen 2 muwaadin oo deegaanka koonfur galbeeda oo nin iyo gabadh bay soo qoreen inay tartamaan ayaa u tartamaya yidhahdeen kursiga hob 045 aan hadda ka hadlaya anugu dhibaatada haddaba dhacday waxa weeye ninka iyo gabadha waxaa la yidhaha Samiira Maxamed Cabdi ninkana Maxamed Jeelaani baa la yidhahdaa labada muwaadin ay soo qoreen labadaba reerka maaha labada tartamaya midna Sheekh Halgan Darshan maaha ragga iga dambeeya iyo dumarka iga dambeeya sheegi doonay labada midna maaha marka halkaa joogto dhibaatada marka beeshay ka socdaan iyagu waxaa la yidhahdaa jasiira labadoodan aljaziira iyo Sheekh Halgan Darshe kursi ka dhaxayn jiray oo isu tanaasul waxaa jira beelo sida markay sidaas oo kale laba beelood yihiin kursi ka dhaxayn kara jiro oo beelaha Soomaaliyeed qaar noocaas u dhisan ama hab dhismeed noocaas qaar leba jiro oo ay dood noqoto warar idinka telemka hor haystay annagana hadarna marka kursi mid cadaalad waxa jira kursiga labada reer kama dhaxayn jirin okay on ku fahmay ku soo waxa walbana waxa uu cad in la cadeeyo markii taasi dhacday ergadii meesha joogtay way ka hadleen waxay yidhahdeen war annaga ilaa Nairobi meel walba markii dambe waa laga hadlay laakiin oo Soomaaliya waa laga hadlay Barawa waa laga hadlay laakiin waxay u sheegeen maamulkii meesha joogay waxay dadku dee maaha deegaanka arrinkii bilkhusuusan anigu waan baaray shakhsiyan arrinkii uun madaxtooyada Soomaaliya unbuu faraha la galay waayo ninka hadda sharaxan Maxamed Jeelaani gabadhu waa qaabka aynu nidhaahno maxlalka bay ku socotaa mooyaane Maxamed Jeelaani baafo waa meesha u sharaxan in leeyahay waa marxiis gabadhu marka Maxamed Jeelaani oo meesha loo wado waa 3 walaalo nin wuxuu ku jira guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ninna waa taliyaha nabad sugidda ilaalada madaxtooyada nabad sugidda sectionka ama qaybta madaxtooyada ilaalisa xamar ayuu taliyo u yahay ninna waa ninka sharaxan waad garan kartaa silsiladu marka heerka ay isugu xidhantahay marka waxaan halkan baaq uga dirayaa oo ku soo aan ka rabaa mar haddii kursigana aynu cadaynay qaabka wax loo wadan aynu cadaynay hadda arrimo kale oo jira aanan rabin oo xagga dhaliyada ha noqoto ama xagga wax iswaanta qaraabaysiga Soomaali ku dhaqanto ha noqotee oo ka dhaxeeya maamul goboleedka koonfur galbeed madaxweynaha Cabdicasiis iyo cid kale kama hadlay oo jira laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago war xaq waxa u leh kursigan beelweynta Sheekh Halgan Darshe anu xaq uma leh nin kale xaq uma laha laakiin cadaaladda waxay nafaraysaa wixii khaldan ee cad ee noocaas in laga hadlo waxaan markaa anigu baaq u dirayaa guddiga doorashooyinka koonfur galbeed guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal guddiga doorashooyinka heer federaal ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si khaas ah aan u leeyahay madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Soomaalidu waxay tiraahdaa saxaro dheer baa iskaga tiraa waxa aan ka hadlay xafiiskaaga waan xusay oo in ilaalada madaxtooyadaada ninka joogay ee la yiraahdo haddaad doonto magaciisa waa kuu sheegayaa in maaragtay uu ina baafu yahay oo uu walaalayihiin ninka tartamaya meesha loo qaaday ee aan xaqa u lahay haddii taasi aanay jirin reer kale ee Sheekh Halgan Darshe dad ilaahayna qariyay maaha Soomaalina qarisay maaha waa dad ummada oo la yaqaano haddee ninkuna hadduu ama xishoodo ama culimo iyo diin shaqo ku leeyahay oo afgaaban yahay
soomaalida badanaa waxay u taqaanaa inuu yahay nin dadka ka yar laadlaada maaha sidaa. waxaan adiga gaar kuula dardaarmay madaxweyne kursigaa dadkii lahaa u celiya, sidaasaa ku qurux badan, adiga kuu sharaf badan, taariikhaan ku wanaagsan oo maaragtay. waayo dadka qaar challenge lala galaa waa jira oo ninku haddii anigu hadda soomaalideenan guud ahaan wax kala ridata challenge-goodu inkastoo markasta cadaalad u wacan tahay waa wanaagsan tahay, laakiin nin aan macnaha aan weligii yaalihii aan lagu aqoon inuu wax boobo ama wax bililiqaysta ama wax umadeed raadiyo ama wax ninkii laleeyahay qabsadaan oo hirigta aynu naqaanin, oo xaqiisa waa in la dhowro oo la iska ilaaliyo. marka waxaan aada iyo aada mar labaad u adkeynaya kursiga hoob 045 in beelweynta shaqaal gandarshe loo soo celiyo, in ugu dambeyn madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen uu maanta hadduu joogo berri joogi maayo kursigeeda, uu dee wuxuu dhigtaa uu ogaado koonfur galbeedna waa guri mayso waa la joogaayo inay u yaalaan, oo haddii uu wanaag ka yeelana wanaaggaas uu qaadanayo, cadaaladdu wanaagga ka mid hadduu xumaan ka yeelana dee nina aanu ku dhimana isaga uun lugihiisa ay imaanayso. intaasaan kusoo gabagabeynayo, aad iyo aadna waad u mahadsantahay. adiga mudan waa hagaag daawadayaal, intaasi ayaanu kusoo koobaynaa waraysigaasi aan la yeeshay maxamuud obsiye cilmi oo aan ka wareysanayay kursi ka soo baxayay degmada Baraawe ee koonfur galbeed, iyadoo sidaan la socono ama wararka kula soconaba ay jiraan doorashooyinkan haatan ka socda gobolada Soomaaliya guud ahaan in ay jiraan kuraas la isdhaafdhaafiyay. tan iyo kulankeena dambe daawadayaal, barnaamijkan oo kale intaan dib u kulmi doono waa Cali Xalaale oo dhammaantiin idinka tagaysa iyo nabad gelyo.